Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Meeshan waxaan tacsiin ugu dirayaa walaalkeena qaaliga ah Cabdi Muriid Dheere oo loo yaqaano Ajax. Waxaan leeyahay Allah u naxariisto dhammaan ummadda muslimiinta meel bay caalamka ka joogaan. Waxaan kaloo leeyahay gadaashiisa ilaahayna ma fidneeyo anagana maalinteena maalin khayr badan Allah ka dhigo. Aamiin aamiin yaa rabbi. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Waxaan sharxi doonaa xigmaddii 16aad. dhammaan asxaabteyda ku xiran YouTube-kayga waxaan idin leeyahay dhegeysi wacan. Fadlan adigoo mahadsan xigmaddan dhammayso. Mahadsanid. Marnaba haniyad jabin. Ha ka xishoon talooyinka badan ee noo soo jeediyaan waalidiinteena. Ha fiirinin xumaantooda ee fiiri gadaashooda. Maxaa yeelay waxaa ka jira jacayl weyn oo aad ogaan doonto maalin maalmaha ka mid ah. Hooyadu waa deeq oo Alle na siiyey. Hooyadu ma ahan wax aan heli karno, balse dad baa jira oo hooyadood hilmaamsan. Ilaahay naga dhig dhammaanteen meel walba oo aan caalamka ka joognaa. Naga dhig kuwii waalidiintooda ka duceysta. Hooyadu waa goob waxbarasho. Dadka ay soo saartana ayaamaha dambe ayay dadka hoggaamiyaan ugu midas adiga. Allaha noo deesto hooyooyinkeena dhammaan meel walba ay caalamkii ka joogaan. Aabbuhu waa siismo aan la soo koobi karin, naxariis aan xad lahayn, jawaab aan su'aal lahayn, talo la'aan talo. 3 arrin ugu mid way i haysaa, midna waan is haynaa, midna wuu i hayaa. Midda koowaad inaan wax qabsado way i haysaa. Midda labaad dadaalna waan is haynaa. Midda saddexaad waqtiguna wuu i hayaa. Jahligu wuxuu keenaa cabsi. Cabsiduna waxay keentaa isnac. Isniciduna waxay sababtaa isdhibaateyn. Awoodda wax lagu barto waa hadiyad. Kartida wax lagu bartana waa xirfad. Rabitaanka barashada waa doorasho ugu. Tartanka aad la gasho dadka ka hooseeya hoos ayuu ku dhigayaa ugu, balse tartanka aad la gasho dadka ka sareeya sare ayuu ku qaadaa adiga ugu. Happy night. It means habeen wanaagsan. Isku day inaadan noqon nin guuleysta, laakiin isku day inaad noqoto nin qiimo leh. Si aad adiga qiimahaaga u ogaato, uma baahnid inaad ku cabirto isbeddelkaaga xilliyada qaarkood iyo ereyada aad ku hadlayso adiga. Laakiin waxaad u baahan tahay inaad igu cabirto sidaan u fakero iyo dunida dhan gudaha iyo sidii aniga qalbigayga ay tahay. Marnaba ha u ogolaanin guuldarrada inay adiga dhulka kugu turto. Hana ogolaanin in kelmadaha lagu dhahayo ay baabi'iyaan dhammaan riyooyinkaaga idil. Waqtiyada qaar waxaad wajahaysaa duruuf adag, laakiin ha istaagin. Ha niyad jabin. Waxa guusha u kaxeeya qofka waa geesinimo iyo dhiirnaan. Inuu ku fikiro dhiirnaan, inuu ku fuliyo dhiirnaan, inuu ku aqbalo guuldarrada. Qof kasta oo aad la kulanto wuxuu ku weydiinayaa xirfadahaaga. Ma guursatay? Guri ma leedahay? Sidee noloshaadu tahay? Liiska wax iibsiga qofna weligiis kuma weydiinayo war adigu ma faraxsan tahay.
war adigu ma faraxsan tahay? Haddii aadan haysan wax aad dadka kala siiso, ku sadaqayso ereyada naxariista leh iyo dhoola caddeynta wanaagsan oo qalbiga ka timaada. Dadkana kula macaamil dabeecad aad u wanaagsan. Qofkaaga si kasta uu yahay, shaqo kasta uu hayo, xaalad kasta uu ku jiro, duruuf kasta oo haysata, ku qanac ileen waa qofkaagii. Biri ayaa maalmihii wacnaa iman doonaan. Waqtiga adagna waa laga baxayaa ogow. Ilaahay wuxuu jecel yahay saabiriinta. Ilaahay wuxuu la jiraa saabiriinta. Macnaha dadka sabra. Dhibaato kasta oo idinku dhacda u sabra oo iyo axba. Midna ha oranina idinku og albaabka ka dambeyn doona inuu yahay mid aad u weyn. Markuu daadka yimaado, kalluunku wuxuu cunaa quraanjada, laakiin marka biyuhu qalalaan, quraanjadu waxay cuntaa kalluunka. Noloshu waxay fursad siisaa qof walba, kaliya sug waqtigaada un. Ogow, miskiinku gaajo uma dhinto. Miskiinku wuxuu u dhintaa dulmi iyo cadaalad daro. Inuu qof kaa toogto dhabarka waa arrin mar kasta dhacda, laakiin inaad dib u eegto oo aad aragto inuu yahay qofkii dadka kugu dhawaa, taas ayaa ah mid aad u xanuun badan. Hadal aad qof farxad ku gelin karto ha uga horseedin murugo, dhibaato. Mid ka mid ah sirta farxadda ayaa ah in qofku xasuusto nimcooyinka Ilaahay siiyay ka hor inta uusan xasuusan welwelka dhibaatada haysata asiga. Ilaah baa mahad leh mar waliba. Alxamdulillaah. Adduunyadu maahan goob raaxo. Raaxadu ogow inay dambeyso. Nasiib daro, mararka qaar noloshu uma soconayso sida anaga aan rabno. Waan lumaynaa, waana niyad jabaynaa. Xitaa mararka qaar waxaa nagu dhaca rajabeel, laakiin qof baa hadda ka hor igu yiri, qofkii uusan helin niyad jab ama rajabeel waa qof aan weligiis waxba rajaynin. Dadka waqtiyada ayaa kulmiya, daruuftana way kala dirtaa. Ma ogtahay adiga? Mararka qaar waxaad arkaysaa adigoo bilaa sabab iskaga ilmeynaya. Micnaheeduna maahan inaad daciif tahay, ee waxaa tahay qof jira. Mararka qaar waxaad arkaysaa adigoo bilaa sabab iska ilmeynaya. Micnaheeduna maahan inaad daciif tahay, ee waxaa gudahaaga ku jiro ayaad awood u lahayn inaad sharaxdo ama aad banaanka u soo saarto. Mar haddii aad qof si xad dhaaf ah u jeclaato, waxaad moodaa dunida inuusan cid kala joogin qofkaas mooye. Marnaba ha niyad jabin. Ogow qofkaas inuu adduun kaliya u joogo. Noloshu waxay i bartay in dareenka wanaagsani uu yahay kan naftaada ku qanacsan tahay. Adigoo ogsoon waxa aad samaysay inuusan wanaag ahayn, ayaad rabtaa inaad ku tilmaanto wanaag, balse midaas suurtagal ma noqonayso. Ogow, haddii marka aad gurigaaga soo gasho ay carruurtaadu kugu soo ordi waayaan iyaga oo ku xiiso qaba aragtidaada, kuna faraxsan soo noqoshadaada wanaagsan, waxa aad u baahan tahay ogow in aad soo qaadatid casharo badan oo ku saabsan tarbiyada iyo la dhaqanka carruurta. Ogow, jacaylka waa in ruux kula qaybsado wax waliba oo aad haysatana ama duruuf walba oo ku haysataba inuu ku qanacsanaado. Ha nicin maalmaha sababtoo ah mideeda ugu qurxoon waxay ku siisaa farxad, mideeda ugu murugdanna waxay ku siinaysaa akhbaar, midda ugu adagna waxay ku siinaysaa cashiro aad u wanaagsan.
oo waxay kaa bartay nolosha. Casharadaasna waa kuwa aadan weligaaga ilaabi doonin. Noloshu waa meerto, wax kastana waxay dhacaan, dhacdo kastana way gudbaysaa, haniyad jabin marnaba. Markaan carruurta ahaa, waxaan aad uga cabsan jiray cidlada iyo mugdiga. Haddana waxaan doorbidaa mugdiga iyo cidlada. Marka aan joogo qol cidla ah, waxaan dareemayaa degenaansho badan. Marnaba ha sugin fursadaha ee adiga doono. Haddaad weydana adiga samayso oo abuuro. Ma jirto fursad la'aan, waxaa jirase qof garan waaya halkii ay jirtay fursaddaas. Haddii aadan awoodin inaad raad wanaagsan ku beerto qalbigada dadka, ha ku beerin xanuun aan la iloobin weligiis. Cid wax kuu sheegta waxaa ugu wanaagsan marka aad adiga wax aad ku qanacsan tahay isu sheegtid. Mararka qaar waxaad dadka kale ugu qalbi qaboojisaa erayo aad u baahan tahay adiga in aad maqasho. Dulqaad u yeelo nolosha. Marnaba ha niyad jabin. Marnaba ha ilaabin Rabbigii ku uumay adiga, ku keenay koonka. Haddii uu qofku ogaan lahaa abaalmarinta sabarkiisa, wuxuu iloobi lahaa xanuunka soo gaaray asiga. Qofna ma liito, balse waxaa jira qof aan aqoonin halka uu ku fiican yahay. Qofkii dhagarta kugu jecel, baahida wuu kugu nacayaa ogow, balse waxaa marnaba ku nici doonin qofka baahida kugu jecel. Waa qof mar waliba garabkaaga taagan. Aamusnaantu waa nabadgelyo, sababtoo ah haddii aad hadasho, waxaa laga yaabaa inuu hadalkaada bato, kabacdina hadalkaada ku geeyo waddo mugdi ah oo aadan marnaba ka baxsan karin. Ogow adiga. Kalsooni darradu waxay dishaa xiriirka jacayl ee labada qof ka dhexeeya. Ku kalsoonow qofkii ku jecel adiga. Cidnaha ku kalsoonaan naftaada iyo qofka adiga ku jecel kaliya ku kalsoonow. Xaqiiqda dhabta waa taas. Wax kasta oo aad samayso, wanaag ama xumaan, adiga ayay dib kugu soo laabanayaan. Ogow. Mararka qaar qaladku waxa uu kugu caawinayaa inaad raadiso xaqiiqda dhabta ah ee jirto. Wixii aad raadintooda badiso, mar waad helaysaa. Ogow. Marnaba ha niyad jabin. Yaan lagaa dhaadhacsiinin cadow kale oo ka banaanka ah inuu jiro noloshaada. Ogow, maxaa yeelay cadowga ka weyn ma jirto naftaada iyo baahida adiga ku hayso. Yaan lagaa dhaadhicinin cadow kale oo ka banaan ah noloshaada ayaad leedahay, maxaa yeelay cadow ka weyn ma jirto nafta iyo baahida qofka. Allah naga dhigo kuwii naftooda ku haga xuska Alle iyo xasuusinta maalinta aakhiro. Qofna ma fiirinayso oohintaada, qofna ma fiirinayso murugtaada, qofna ma fiirinayso xanuunkaada adiga, laakiin dhammaantood waxay fiiriyaan qaladaadkaada. Ha ka dhigan farxaddaada in ay ku xirnaato wax waqti kooban ah ama wax aad waayi doonto. Alla raaligelintiisa ka raadso farxad, sababtoo ah isaga keliya ayaa baaqi ahaanaya. Ogow mar kasta. Ogow xaalad walba Ilaahi ayaa kaa bixin kara. Rabbi tala saaro mar waliba. Ha niyad jabin. Yaraanteeda isha ayaa biyo iskaaga shubi jiray si aan u muujiyo ilin, balse markii aan weynaaday, mar walba ayaa wejiga biyo ku shubaa si aan u qariyo ilinteeda. Habka ugu wanaagsan ee lagu iloobo xasuusihii hore ee adkaa
waa in la samaysto xusuuso kale oo qurxoon kana wanaagsan kuwii hore. Haniyad jabin. Xoog yeelo oo naftaada rumayso waqtiga dhibka ah oo mar dhow waad ka gudbi doontaa dhibaatooyinka oo dhan. Diidmadu waa qayb ka mid ah nolosha, keliya baro inaad wax ka qabato oo sii wad dhaqdhaqaaqaaga adiga. Haddii aad quusato, way dhammaatay, laakiin haddii aadan sameynin, waxaa imaan doonta maalin aad ku farxi doonto inaadan quusan. Marna ha qorsheynin mustaqbal qof aan qorshe u lahayn naftooda. Waxba ha murugoon haddii uu midkood sirtaada ku ilaalin waayo una sheego dadka kale adiga ku necbanaay. Adiguba waxa aad awoodi weysay in aad sirtaada ku ilaashato naftaada iyo qofka adiga ku jecel. Marka qof sameeyo wax qalad ah, ha ilaawin dhammaan waxyaalihii uu si sax ah u sameeyey asiga. Isku aadi dhanka iftiinka si hooskaagu uu kaaga dambeeyo. Micnaha xigmaddan ma fahanta adiga dhegeysanaya. Mar waliba ogsoonow nolosha inay wax walbeed u baahan tahay. Mar waliba naftaada ku kalsoonow, marnaba haniyad jabin. Farxaddu waa shay qaali ah, marnaba haniyad jabin. Guul ka filo noloshaada, dadaalkeedana lahaaw. Ogow waxa kugu soo food leh ayaa ka wanaagsan waxa adiga ku seegay. Maalmo wanaagsan ayaa imaan doona, lama seexan doontid habeen kasta niyad jab iyo murugo. La jihaad naftaada, waayaha la jaanqaad. Mararka qaar maalmaha adag waxay kaa dhigaan qof xooggan oo aan marnaba jabeynin. La soco xigmaddii 17aad insha Allah.